inta badan waxaa degan xaaladda magaalada Baydhabo kadib dagaal saaka waa berigii ay ku qaadeen ciidamadii taabacsanaa madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ku sugan magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya. saaka waa berigii hore magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal aad u qaraar ah u dhaxeeyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed taabacsanaa ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo, waxaana la soo warinayaa inay hadda degan tahay xaaladda magaalada Baydhabo kadib war uu soo saaray booliska gobolka Baay oo kaga hadlay xaaladda. waxa uu sheegay inay degan tahay xaaladda magaalada Baydhabo kadib dagaal saaka aad u qaraar oo halkaasi ku dhacay. inta badan waxaa dib isaga baxay ciidamadii taabacsanaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo kadib saaka waa berigii weerar ay ku bilowday markaasi dhinac dhowr jiha ay ku qaadeen waa magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. booliska oo markaasi sii hadlayay waxa uu sheegay in inta badan ay degan tahay xaaladda magaalada Baydhabo kadib dagaal saaka aad u qaraar oo markaasi ka dhacay duleedka magaaladaasi. war-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa markaasi bulshada Soomaaliyeed waxay la wadaageen inay inta badan degan tahay xaaladda magaalada Baydhabo kadib dagaal saaka aad u qaraar oo ka dhacay duleedkaasi. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu bulshada la wadaagayaa faahfaahinta natiijooyinka rasmiga ah ee howlgalka marka la soo gabagabeeyay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Baay kadib dagaal saaka aad u qaraar oo ka dhacay duleedka magaaladaasi. ciidamadii Laftagareen inta badan waxaa laga wareegay saraakiil aad u fara badan iyo kuwa uu markaasi horkacayay waa ugaas Xasan Cabdi Maxamed afhayeenka maamulkaasi, waxayna doonayeen inay la wareegaan gudaha magaalada Baydhabo. hase ahaatee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay si adag uga hortageen weerarkaasi ay saaka ku soo qaadeen ciidamada dowladda federaalka kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. booliska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in markaasi ay ka shaqeyn doonaan waa ciidamada booliska gaar ahaan kuwa militariga iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan gudaha magaaladaasi ammaanka magaalada caasimadda ee markaasi ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. galabta gelilka dambe waxaa la rajeynayaa in hogaamiyaha ku meel gaarka ah maamulkaasi Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi uu booqdo fariisimaha ay ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada Baydhabo, kuwaasi oo si adag ula dagaalamay weerarka ay kooxda Al-Shabaab markaasi ciidamadii Laftagareen ay ku qaadeen gudaha magaalada Baydhabo. waxauna markaasi kormeerkiisa uu daarnaa doonaa dardargelinta ammaanka magaalada caasimadda Al-Shabaab waa Koonfur Galbeed Soomaaliya Baydhabo. waxauna ciidamada ku ammaani doonaa ama kula dardaarmi doonaa howlgallada ay ka fuliyeen duleedka magaalada Baydhabo kuwaasi oo looga saarayay ciidamadii daacad u ahaa madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ah musharaxa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed u taagan ayaa kulamo siyaasadeed wuxuu ka wadaa gudaha magaalada Baydhabo isagoo galabta la qaadan doono xildhibaanada golaha deegaanka iyo kuwa golaha wakiilada oo maanta lagu dhaariyay magaalada Baydhabo, kuwaasi oo markaasi kulamo kala duwan oo la qaadan doono sidii u dardargelin lahaayeen xilkan cusub ee loo soo egmaday. saaka Baydhabo waxaa markaasi arrintan ku soo aadaysa iyadoo ka dhacay dagaal aad u qaraar oo u dhaxeeyo ciidamada Laftagareen iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. kuwa Laftagareen inta badan waxaa laga wareegay hubab suugag iyo markaasi hubab kale oo noocyadiisa kala duwan ciidamo ayaana nolosha loo qabtay oo laga wareegay duleedka magaalada Baydhabo oo ay halkaasi weerar ku soo qaadeen. waxaa la sheegay inay dib ugu laabteen magaalada Baydhabo ee haatan ay ku sugayeen duleedka magaaladaasi ee abaabul ay mar kale dib ula wareegayaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo. tani markii xukuumadda hogaaminaya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen laga wareegay magaalada Baydhabo waxaa soconaya waan u dhaxaysa labada dhinac oo la doonayay in xiisada lagu qaboojiyo. hase ahaatee Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka sabrayla sidii looga wareegay magaalada Baydhabo ayaa waxa uu doonayaa in mar kale uu dib u soo markaasi jeesto si uu ula wareego duleedka magaalada Baydhabo. oo ah meesha markaasi looga taliyay maamulka Koonfur Galbeed inta badan waxaa ka dhaca isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen in ka badan 7 sano oo maamulayay maamulka Koonfur Galbeed in ka yar hal maalmood ayaa looga saaray gudaha magaalada Baydhabo, waxayna warbaahinada qaar ama dadka ka falaqayo arrimaha siyaasadda ay aad u dhaleeceynayaan sidii looga saaray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen magaalada Baydhabo.
lafta gareen doorasho markaasi hal maalin ayuu wuxuu ku qabsaday tan golaha wakiilada iyo tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha isagoo dib isku doortay asaatay maalintii ka dambeysay ayaa laga wareegay magaalada Baydhabo maantana weerar ayuu ku soo qaaday gudaha magaalada Baydhabo balse ciidamadiisa ayaa guuldareystay oo dib looga saaray gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya haddaba waxyaabo ka soo kordha weerarkan ciidamada lafta gareen ay ku qaadeen gudaha magaalada Baydhabo barnaamijyadeena haddaba ayaad ku daawan doontaan balse marka hore nagu soo biiraysi aad weeshaan xogii ugu dambeeyay ee naga soo gaara gudaha Soomaaliya aad baad u mahadsantihiin